shaqo adag baa runtii u taallo beelahan daarood oo runtii wax la wadaaga Soomaali waxa u taallo midnimadooda inay ka shaqeeyaan iyo wadajirkooda sidoo kale waxa u taallo in ay ka shaqeeyaan sidii Soomaali ay wax ula qaybsan lahaayeen runtii sidoo kale waxaan rabaa ugu dambeyn inaan bogaadiyo u mahadceliyo dowladda Puntland iyo madaxweynahaba runtii shaqada adag oo hortaal iyo shacabka Puntlandba hawsha adag oo hortaallo oo ay kula jiraan ajaanibtaas ku soo duulay dalka waxaan leeyahay intii dhimatayna Allah u naxariisto inta noolna ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj khayr qaba iyo xurriyad buuxda Allah siiyo shaqo adag baa runtii u taallo beelahan daarood oo runtii wax la wadaaga Soomaali waxa u taallo midnimadooda inay ka shaqeeyaan iyo wadajirkooda sidoo kale waxa u taallo in ay ka shaqeeyaan sidii Soomaali ay wax ula qaybsan lahaayeen runtii sidoo kale waxaan rabaa ugu dambeyn inaan bogaadiyo u mahadceliyo dowladda Puntland iyo madaxweynahaba runtii shaqada adag oo hortaal iyo shacabka Puntlandba hawsha adag oo hortaallo oo ay kula jiraan ajaanibtaas ku soo duulay dalka waxaan leeyahay intii dhimatayna Allah u naxariisto inta noolna ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj khayr qaba iyo xurriyad buuxda Allah siiyo shaqo adag baa runtii u taallo beelahan daarood oo runtii wax la wadaaga Soomaali waxa u taallo midnimadooda inay ka shaqeeyaan iyo wadajirkooda sidoo kale waxa u taallo in ay ka shaqeeyaan sidii Soomaali ay wax ula qaybsan lahaayeen runtii sidoo kale waxaan rabaa ugu dambeyn inaan bogaadiyo u mahadceliyo dowladda Puntland iyo madaxweynahaba runtii shaqada adag oo hortaal iyo shacabka Puntlandba hawsha adag oo hortaallo oo ay kula jiraan ajaanibtaas ku soo duulay dalka waxaan leeyahay intii dhimatayna Allah u naxariisto